الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين. walaalayaal salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. meel walbaad joogtaan waxaan leeyahay waqtiga ha idin wanaagsanaado. kulankan aan mar walba aan kulmaynana asal allaha caza wajal an yajcala lana fi miisaani xasanaati, in ilaahay nooga dhigo ayaan ka baryana insha allahu tacaala. meeshan beejka lagu kulmayo loo kulmayo ay tahay keliya in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii aynu kala faa'iidaysano, oo qof waliba intii ilaahay karaankiisi uu ka dhigay ee walaalada uu la wadaago. codka dabcan inaad maqlaysaan si fiican aad u maqlaysaan baan rajaynaya insha allah. waxaan soo haynay oo aan khadka soo gelinaynay kitaabka la yidhaahdo أحكام التلاوة والتجويد الميسرة. كتاب كاس ayaa in badan waxaan ka soo qaadanay 7 dars. 7daas darsi ee aan soo qaadanay casharada ah, ilaahay waxaan ka baryayaa in carabkayga uu toosiyo marka ugu horeyso. waxaan gudbinayna ay noqdaan wax walaalada ay fahmaan ay ka faa'iidaystaan. inta ka bacdi walaalayaal, kitaabkani caawa waxaan qaadanaynaa darsigiisa 8aad ayaanu qaadanaynaa insha allah, oo runtii aad moodid maalinta ka dambeysa inaan qaybihiisa kala duwan ee gudaha aan usii galayno. marka waxaan rajaynayaa in uu noqdo mid siduu u bilaabmay oo fudeedku noogu bilaabmay ilaahay fudud inoogu dhameeyo. inta ka dhimana walaaladana waxaan ka rajaynaya insha allahu tacaala inay ka faa'iidaysan doonaan oo ilaa kitaabka uu ka dhamaanayo. kitaabka waxaad la socotaan mawduucyadiisii oo aada iyo aada u qiimo badan, iyo muxuu ahaa qaabka u socdo oo sheekhu usoo qoray oo aada iyo aada u macaan badan. qaab jadwal ahaan uu usoo sameeyey. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in darsiga say tahay inoogu socdo haddii ilaa yidhaahdo. casharkeeni darsigiisa 8aad ayaanu gelaynaa biidn illahi alkariim. marka dhegihiini inaad si fiican aad u furtaan. dabcan kitaabka intaa la akhrisanayo ama la akhriyayo mawaadiicdiisii waxaa laga yaabaa qofka inuu muxuu ahaa xoogaa meelaha qaar uu fahmi waayo. wixii la fahmi waayana insha allah lasoo gudbiyo. taas ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. oo wixii u baahan in la faahfaahiyo inaan dib aan ugu noqno dhib male. inta darsiga uu socdo ayaa qofka su-aal uu qabo ayuu soo tabin karayaa. marka casharkan ka baxna ayaan dib u eegayna haddii ilaah yidhaahdo biidn illahi alkariim. aan isku dayna inaan markaa wixii oo karaankeeni ah inaan kaga jawaabno. caawa darsiga aan qaadanayno intaanan gelin xalay toole waxaan kasoo gudbnay darsigii 7aad ee ka hadlayay makhaarij alxuruufka. mawduuca noogu dheera aan ka hadalnay ayaa waxa uu ahaa makhraj allisaan. 10 boos ayaa kasoo baxaya carabka. waxaynu u kala qaybsamayaan ilaa iyo 18 qaybood oo ah 18 xaraf ama 18 boos dheh haddaad doontid. marka insha allahu tacaala bal waxaan gudagelaynaa qeybta kale xigta oo ah mawduucaas mawduuca ku xiga. dabcan mabaaxith fi culuumi alqur'aan marka laga hadlayo waxyaalo fara badan baa qofku arki doonaa, oo sida mathalan xuruufta kasoo baxaysa sanqaroorka oo kale xalay mawduuca ugu dambeeyay aan ka hadlaynay. waxaa sidoo kale aad arkaysaan faruuraha xuruufta kasoo baxaysa, carabka inta kasoo baxaysa, sidoo kale inta u dambeysa ah qeybta xalqada ama dhuunta ama iyo joofka halka gunta ugu dambeysa oo xuruufaha ay kasoo baxaan.
caawa waxay noo xiga haddaba insha allah iyadoo tafsiil ahaan kulli xalay baan soo sharaxnay insha allah qofkii doonayaan youtube-ka ay dib u raacaya casharadaasi oo aan rajaynayna insha allah inaan markastaba ay la socdaan qeybaha ugu muhiimsan oo ah kan inta ugu badan loo baahan yahay ardayga inuu si uu ku fahmo sawir ahaan inuu fahmo. يعني waxa laga hadlayo waa xuruuftii xarafkii haddii afku kasoo baxa kale la yidhaahdo oo aan ardayga loo cadaynin xarafkaasi booska uu kaga soo baxaya afka hadday noqon lahayd, carabka hadduu noqon lahaa, khayshum hadduu noqon lahaa, dhuunta hadday noqon lahayd, intaa oo dhan hadday noqon lahayd, waa haddii keliya aan loo la yidhaha halkaasu kasoo baxaya aanan loo cadaynin meesha badaad ahaan xarafkaasi makhrajkiisi uu ku xiriiro xoogaa yar fahmi karay. marka aynu u gudubno insha allah darsigaanu sideedaad oo ka hadlaya kala qaadida oo aan ku kala qaadayno aljawfu walkhayshuumu wallisaanu walxalqu oo ah sawir ahaan aad u arki kartaan insha allah kitaabka qofka haysta uu arkaya. waxaanu ka bilaabayna insha allah qeybta aljawf. aljawfu markaan ka hadlayno afkii waa kan inta la wada yaqaan, laakiin qayb waxaa jirtaa jawf la yidhaahdo oo ah afka gudihiisii afka gudihiisii qaybtaas waxaa la yidhaha jawf, godka ama gunta meesha ugu shaysa ee afka ayaa la yidhaahdaa. sawirka noo muuqanaya oo luqa carabi ahaanna waxaan tilmaanay waxaa la yidhaha alkhalaa walfiraaq, cidlada ama meesha banaan ee cidlada ah ee ugu dambeysa ee afkaagi ayaa waxaad ku arkaysaa waxaana dhacayaa daakhil alfam afka gudihiisi gunta, walxalqi dhuunta markaan ka hadalno dhuunta asal ahaanteedii waa tan hunguri mareenka loo yaqaano. marka afkiiaad ka gudbaysa dhuuntiaad usii socotaa halkaa weeyaan. waxaana kasoo baxaya xuruuf almad athalaatha, xuruufta saddexda ee la mido. xuruuf almad athalaatha waxaa la yidhahdaa kow waan soo sheegnay waxay yidhaahdaan alifka alif almad almadiya walwaaw almadiya walyaa almadiya. saddexdaas xaraf ayaa waxay ka soo baxayaan dhuunta ay kasoo baxayaan jawfka halka ugu shaysa ee gunta ah. qodobka labaad alkhayshuum, alkhayshuum oo ah kan oo sanqarorka yidhaahdaan halkaa shishe ayaa waxaa kasoo baxaya xuruuf. xuruuftaas kasoo baxayaan dabcan xalay tool waan tilmaanay, sida waxaan soo tilmaanay nuunka iyo miimka, nuun iyo miim ayaan soo tilmaanay. marka qodobka saddexaad kaas ku raagi mayno, waan ka gudbaynaa, waxaan u gudbaynaa kan saddexaad oo ah alxalqu, dhuunta. toos hadda waa dhuunti weeyaan. marka hore gunta afka guntiisu ahaa mogta, hadda waa dhuunti weeyaan aad arkaysaan hunguri mareenka loo yaqaan. waxaana kasoo baxaya dhowr xarafa kasoo baxaya. dhowrkaas xaraf ama saddex qaybood oo makhraj buu leeyahay. saddexdaas waxaan u kala qaybaynaa halkaa ugu shishaysa iyo qeybta dhexe iyo qeybta afka soo xigta. adna alxalq wa wasat alxalq wa aqsa alxalq. saddexdaas qaybood ayay u kala baxaysaa xuruufta muxuaha makhaarijta ay leeyihiin. marka dib u raaca waxaad dib u raacaysaan inta kasoo baxaya oo dhan ee aan sheegnay oo qaybahaasi aad arkaysaan kulli dhammaantoodii jadwalkii ka horreeyey ee xalay toole aan sharxaynay ayaad arki kartaan. nuqdada afaraad oo muxuu ahaa noo xiga waxay noqonaysaa allisaan. lisaanka isaga uu ka badan yahay waxa kale oo dhan. waxaa jira carabka xuruufta kasoo baxayso aqsa lisaan oo kale, carabka halka ugu shishaysa uu ku yaalo waxaa kasoo baxaya aqsa markii laga ha abcad ee fog weeyaan mima yali lxalq ee dhuunta weliba xigta. qeybta carabkaada ugu shishaysa uu ku yaalo ee xigta dhuuntaada xigta waxaa kasoo baxaya welibana waxaa la socda maa yuxaadiihi min alxanak alaclى, dhanxanaga sare ayaa waxaa kasoo baxaya iyo markii la isku keeno carabkaagi iyo dhanxanaga sare ayaa waxaa saa isku qabanaya xarafka la yidhaahdo xarf alqaaf. alqaaf waxaa sidoo kale xiga kaaf ayaa xiga oo ah in yar markii laga soo dhaqaaqo carabka meesha ugu shishaysa oo xigta haddana dhanxanaga sare welibana waa isku makhraj bay noqonayaan, laakiin
farqi yar ayaa u dhexeeya kaaf iyo qaaf. in yar ayaa waxaa la yidhaahdaa halka shishe ee carabka uu ku yaala ayaa in yar laga soo durkay ay yidhaahdaan, laakiin waa un meesha ugu shishaysa aad arkaysaan labadaasi xaraf ayaa kasoo baxaya, waa alqaafu walkaaf. ayib nuqdada kale noo xigta waxay noqonaysaa wasat lisaan, carabka bartamihiisii oo u dhexaysa carabka bartamihiisii iyo muxuu ahaa dhanxanaga sare, carabka bartamihiisii iyo dhanxanaga sare aad arkaysaan ayaa waxaa u dhexeeya xaraf makhraj ayaa kasoo baxaya. makhrajka kasoo baxay waxay yihiin 3 xaraf, aljiim washiin walyaa gayri almadiya ayaan kusoo tilmaanay, walyaa gayri almadiya. ya-da madka wadata waxaan kusoo tilmaanay inay kasoo baxayaan xuruuftii hore aan soo tilmaanay oo ah aljawf, alif almadiya walwaaw almadiya walyaa almadiya. laakiin ya-dan hadda la tilmaamayo gayri almadiya weeyaan, oo shaqo kuma leh in la mido, ya aan la midaynin, saas laga hadlaya. marka waxaa kasoo baxaan tilmaanay wasat lisaani maa bayna wasat lisaan, ama wasat lisaani maa bayna wasat lisaani wamaa yuxaadihi min alxanak alaclى. carabka bartamihiisii ee markii la kala qaybiyo in yaro kamida, carabka bartamihiisi aad sii kala qaybinaysaa, bimacnaa carabkii bartamihiisi aad sii kala qaybinaysaa. waxaa u dhexeeya marka dhanxanaga sare ayaad raacinaysaa, waxaa kasoo baxaya 3 xaraf. ee xarafka saddexaad oo ya-d ah waa inay noqotaa bisharti an takuna gayri almadiya wa an laa takuna almadiya. intaa kaga gudub marka ixdaa xaafat lisaan, waxaan usoo gudbaynaa marka labada carabka labadiisa qaybood, midigta iyo bidixda meel kamid a, ama midig ama bidix kaa doontid, waxaa kasoo baxaya marka waxaa lala socodsiinaya ee la jaar noqonaya goosihii sare, kuwa dambe ee hoose waan ka hadli doonaa, mawduucda waa gooni. waxaa kasoo baxaya xarf addaad. imaam maxamuud khaliil xusari raxmatullahi caleyh waxaan tilmaanay inuu kasoo baxayo ay ugu fududdahay, ayna ka fududdahay in midigta laga soo saaro, bidixda ayaa fudud buu leeyahay. sheekhan kitaabka qorayna waxa uu leeyahay tan ayaa aysar ah wa ashal ah wa asracna ah. weliba qaybta bidixda inuu qofka daadka uu kaga soo saaro ayay kaga fududdahay in midigta uu kasoo saaro, midigta way ka culus tahay buu leeyahay marka daadka laga soo saaro. qaar markay ku dhawaaqay marka daad yani carabka ay banaanka keenayaan, ama muxuu ahaye labadii daan ayay muxuu aha banaanka keenayaan, ay soo kuusayaan. taana wax sax ma, laakiin waxaa la doonayaa adiga khiyaaraad leedahay, ninka qaari qur-aanka rag iyo dumar wuxuu doona ha ahado, imaa inaad midig aad kasoo saarto, waa imaa bidix aad kasoo saarto, waa imaa labadooda iswaafaqsan aad kasoo wada saarto. haddaad kasoo saari kartid aday si kuu fududdahay inaad samayso, falawlaa in adiga marka kii fudud aad qaadato adigaa lagaa doonaya. muhiimadan waxay tahay marka xarf addaad inaad soo saartid, addaad xarf addaad. ayib qaybta waxaan kaga gudbaynaa adnaa ixdaa xaafat lisaani, sokeeye ee ugu soo sokaysa, qaybta ugu soo sokaysa ee xigta carabka qaybihiisa mid kamid a, labadiisa dhinac meesha ugu soo sokaysa ee fooda soo xigta a laga hadlaya. adnaa ay adnaa طaraf lisaan laga hadlaya, adnaa طaraf lisaan. laakiin weli kamaanan bixin qaybtii ahayd xaafat lisaanki kama soo bixin. xaafat lisaan midig ama bidix, ama bidix ama midig, ee qaybta ugu soo sokaysa ah ee xigta carabkaaga foodiisa hore, waxaa kasoo baxaya layidhi ilaa muntaha طarafihi ay طaraf lisaani, ilaa laga soo gaarayo maca lathati alculyaa, ciradka sare markii lagu daro waxaa kasoo baxaya xarf allaam. inta waad fahamteen baan u malanaya. xarafkaas laamka la yidhaahdo laam waxaa kasoo baxaya insha allah adnaa طaraf lisaan, adnaa طaraf lisaan. carabkaasi foodiisa hore qaybta xigta oo qaybta bidix ama midig ayaa waxaad raacinaysaa inta ugu soo sokaysa ee carabkaaga qaybtiisa hoose, ayaa waxaa kasoo baxaya la yidhaahdaa ilaa muntahaahu ay muntahaa طaraf lisaan. geeska afka carabka inta laga soo gaarayo waxaa kasoo baxaya
maca lathati alculyaa markii lagu daro cidhadka sare lathati alculyaa laam ayaa ka soo baxaya. ayib nuqdada kale xigta طaraf الlisaan marka toosu kaale طaraf الlisaani طaraf الlisaan carabkii foodiisi hore carabkii foodiisa hore carabkii foodiisa hore waxaan u dhaxeeya bayna athanaaya alculyaa waasufla ilkihii sare iyo ilkihii hoose meeshay ka soo baxayeen ayaa waxaa u dhaxeeya carabkii foodiisii hore waxaana ka soo baxaya xarafka la yidhaahdo xaraf annuun waana makhraj allaam makhraj allaam ayaa waxay isku makaan ay noqonayaan ay kasoo wada baxayaan makhrajka la yidhaahdo ama xarafka la yidhahdo nuun nuun ayaa kasoo baxaya. ayib waxaan u gudbaynaa qaybta kale xigta طaraf الlisaani qariibun ilaa dahrihi dhabarkiisi ayay xigtaa qariibun ilaa dahrihi ayaa waxaa kasoo baxaya xaraf la yidhaahdo ama qaliilan ilaa dahrihi qaliilan in yar oo dhabarkiisi aad moodid carabka dhabarkiisi aad moodid bacda makhraj nuuni xarafka nuunka la yidhaahdo booskuu kasoo baxayo ayaa waxaa kasoo baxaya xaraf la yidhaahdo ra lianna ra'da markaad dhawaaq aad ahaadan u dhawaaqayso waxay yeelanaysaa in yaroo xarakaad yaray yeelanaysaa kadibna waxaa soo baxaya makhrajkeedii ayaa kasoo baxaya waana waxaa la yidhaahdaa طaraf الlisaani qariibun ilaa dahri carabka foodiisi hore ayaa waxa marka ay u dhowdahay dhabarkiisii xagga hoose ah ayaa waxaa markaa kasoo wada baxaya makhraj annuun makhraj nuun ayay waxay u dhow yihiin waxay u dhowdahay dheh xarafka ra'da la yidhaha booskeedii marka laamkii nuunkii ra'dii intaaba makhaarij ahaan way isku dhowaanayaan. xarfu ta intuu kasoo baxaya marka طaraf الlisaani ama طarfu الlisaani carabka foodiisa hore ayuu kasoo baxa usuul الthanaaya alculyaa iyo ilkaha sare meeshay ku yaaliin cidhadkaasi sare aad arkaysaan waxaa kasoo baxaya eto waad arkaysaan carabkii foodiisa hore ayaa waxaa la taabsanaya xagga shishe ee muxuu ahaa cidhadkaa la taabsanaya. intaa marka waxaan kaga gudbaynay qaybta kale ah طaraf الlisaan laba xaraf ayaan qaadan doonaa oo kale ah attaau wadaal attaau wadaal attaau wadaal labadaasi xaraf makhrajkooda muxuu noqonaya طaraf الlisaan waa fooda carabka hore fooda carabka foodiisii dheh waa usuul الthanaaya alculyaa ilkaha sare bartay ku yaalin cidhadkoodii ah waxaa kasoo baxaya xarfu taa'i wa xarf addaal sood asaguna halka kasoo baxaya طaraf الlisaani carabka foodiisa maca maa bayna waxaa lagu daraya marka inta udhexaysa maa bayna athanaaya alculyaa wasufla ilkihii sare ilkaha hoose inta udhexaysa iyo carabka foodiisa hore waxaa kasoo baxaya cafan asood siin iyo zaay siin wazaay ayaguna waxay kasoo baxayaan طaraf الlisaani maca maa bayna athanaaya alculyaa wasufla qariibun liaطraaf athanaaya asufla waxayna u dhow yihiin xoogaa ilkaha hoose ay meeshay kasoo baxayaan ay u dhow yihiin xoogaa الsiin wالzaay sidaa weeyaan. xarfu الdha xarf الdha xarfu الdhan waxaa la yidhaha طaraf الlisaani wa usuul الthanaaya alculya carabka foodiisi iyo ilkaha sare barta ay ku yaaleen. qodobka shanaad waxaan kaga hadlayna ashafataani labada faruurood ayaa waxaa kasoo baxaya dhowr qodob ay leeyihiin ayaguna kan kood waxaa ugu horeeya ee la yidhaahdaa mandaru shafatayni ama batni shafatayni iska dheh haddaad doontid mandarka ama batniga kana loola jeedaa ee aad arkaysaan waxaana kasoo baxaya cinda nutqi waaw gayri lmadiya waaw marka lagu dhawaaqayo wowna ma aha waaw aa la yidhaha waaw waxaa kasoo baxaya waaw gayri lmadiya ah waawgi aan la shidaynin cafwan aan la midaynin ayaa kasoo baxaya iyo sidoo kale haddana batni shafatayni ama mandar shafatayni faruurihii
qaybtoodii muxuu ahaa calooshoodii waxaa kasoo baxaya cinda nutqi almiim miim waaw intaas. sidoo kale faruurta waxay kale kasoo baxaya haddana mandar shafatayni ama batn shafatayni saa doontida mandar batn kulli isku mid weeyaan. cinda nutqi xarfu lbaai ayaa kasoo baxaya, xarfu lbaa ay kasoo baxaysaa. sidoo kale mandar shafatayni cinda nutqi xarfu lfaai alfa. idan inta waxaan ku garanay inay kasoo baxayaan 4 xaraf ay kasoo baxayaan faruurahaas: alwaawu غayr اlmadiya wاlmiimu wاlbaau wاlfaa. 4ta xaraf halkaasay kasoo baxayaan. in sha allahu tacaala casharkaasi waxaan rajaynayaa in halkaas uu ka ekaan doono caawa. waxaan usii gudbi doonaa in sha allah alqaab alxuruuf, xuruufta magacyada ay wataan ama laqabyada ay wataan ayaan sii gudbi doonaa in sha allahu tacaala beritoole hadduu alla edmo. tan iyo kulantadeynii dambe in sha allah waxaan ku kala tegaynaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi وبركاته.